ابن سلام ابن سلام عليكم ابن سلام عليكم ابن سلام سلام Shalom, shalom. Shubni. Shalom, shalom. Shalom. Waa ereyada uu adeegsado. Shalom. Waa salaantooda inta badan marka qofka la yiraahdo salaamu calaykum. Halka inagu ay idhaahdo salaamu calaykum. Isagu shalom wuxuu uga dhigay hees caadi ah. Shalom, shalom. Waayahay. Kani waa muuqaalka yahuudi sahyuunida ahayd oo dhex mushaaxeysha magaalada caasimadda ee Hargeysa. Kanina waa sawirka haweeney sheegatay inay tahay muslimad oo xijaaban oo Soomaaliyeed, haddana nin yahuudi oo sahyuuni ah oo xijaabka ka fiidaya. Sababtu maxay tahay? Waxay sidataa keliya dharkiisa ama calankiisa oo keliya ayay dhabarka saaratay. iyadu waxay ka tahay ictiraafka ay ka heshay Israa'iil. Isaguna wuxuu u arkaa haweeney argagixisa. Dharkani waa dhar argagixiseed sida sawirka uu ka muuqdo. Iska tuur macnaha. Saas uu sii qabanaya xijaabka madaxa ayuu ka sii fiidaya. Yaa u baneey. Sawirkana waa halka uu qaabdarada uu ku sameynayo. Sawirkan kalena waa isagii oo la dhunkanayo. Dhalinyaro reer Somaliland waxay dhunkanayaan madaxa iyo daankaba ay ka dhunkanayaan nin yahuudi ah. Weliba ay ugu mahadcelinayaan ictiraafka. Waa arrimaha ka soo kordhay xalay ilaa iyo saaka warbaahinta aad u saameysay dhacdooyinkan. Dadka qaar ka mid ah reer Somaliland ayaa sheegay in aqoonsiga iyo jeclaanta ee yahuudda laba ay kala tahay. Laakiin tani ay muujinayso jecel ahaanshaha reer Hargeysa ay u qabaan ee yahuudda iyo reer Israa'iilba. Warbaahinada ayaa aad u hadal haya dhacdooyinkan foosha xumi ee ninkan haweeneydan muslimadda oo xijaabka ka fiidayo iyo si lamid ah dhalinyaradan oo sheeganaya inay muslimiin yihiin, haddana nin yahuudi ah daanka iyo madaxaba intay iskugu tageen ay ka dhunkanayaan. Dhacdooyinka ee laga diiwaangeliyey xalay ilaa iyo saaka caasimadda Hargeysa ee dowladda Somaliland. Somaliland ayaa sheegtay dadkeeda iyo iyadaba inay si wadajir ah u soo dhaweynayaan Israa'iil, isla markaana ay u hayaan maxabo iyo kalgacayl aan dhammaad lahayn. Haddaba dadka qaar ayaa falanqeynaya ictiraafka oo laga helo dowladii yahuudi ah gaarkeedu weeye, iyo dhaqanka in la jeclaado iyaduna waa gaar kale weeye. Dhinaca diinta ayaa laga eegaya ayay taagan yihiin qaar ka mid ah reer Somaliland. Halkaad nagala socoteen waa hoyga Banaadir TV. Haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir, share dheh, asxaabtaada sii gaarsii muuqaalada si ay kuu soo gaaraan muuqaalada xiga ee